بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سو دواده صاحبي aan mar kale waa casharkeennii ugu dambeeyay qaybta advanced level waa casharka afraad casharkan waxaynu ku baran doonaa maadaama aan soo baranay suuqa aynu ka soo bilaabanay meelo badan ilaa forex maxay tahay ilaa sida inter loo qaato aynu nimaanay kadib waxaan u baahanahay marka akoonka interiga ku qaadato sidii aad u manage gareyn lahayd sidii aad interigaas u xarin lahayd sidii aad dhaqaaqa ula socon lahayd ayaynu casharkan ku qaadanayna inaan maaragtay xogaa ku bayaaniyo qaybta tan waynu u soo laamo doonaa oo risk managementiga inta tan ayaan hal mar inta hore ka hadli doonaa oo trading psychology horta waa midda koowaad trading psychology-gu waa tradingku meesha uu dhintay forex ama qofkii trade gareeya ama qofkii ganacsada ahba meesha ay ugu dhimatay waa psychology-gaagu hadduusan psychology-gaagu dhisnayn trade-ka wax badan kama qaban kartid ama ma sii joogi doontid mindset-kaagu waa inuusan marka koowaad ahayn mindset boqolkiiba boqol lacag raadinaya waa mindset waxaa la rabaa marka koowaadba aaminsan in lacagna la waayi karo lacagna maaragtay la heli karo waa inaad maaragtay marka koowaadba tahay trading mindset-ku boqolkiiba boqol aad ayuu u fiican yahay inaad maaragtay daawataan muuqaalada maaragtay ka sheekeynaya trading psychology-ga inaad akhrisaan buugaagta ka sheekeynaya psychology-ga ganacsiga kulli buugaagtu maaragtay si qaas ah uu qoray ustaadkiina muallimu oo kale haddii maaragtay dee si aad u baratid trading psychology-gaaga ama aad iskaga dhistid journalku aad ayuu muhiim ugu yahay markii la joogo suuqa kan waa wax maaragtay boqolkiiba boqol muhiim ku ah waxaad la soconaysaa markaas trade-ka aad qaadatay meesha aad ka qaadatay jihada u qaadatay si aad u qaadatay ayaad ogaanaysaa haddii trade-kaas u qaldanaa biri iyo maalin dambena kuma noqon doontid maadaama trade-kaas aad journal garisay laakiin haddii aadan journal gareyn waxay iska noqonaysaa maanta timaadid suuqa buy iyo sell iska tagtay birina timaadid sell buy midna iska tagtay saas haday maalin walba ku jiraysaa waxa noqonaysaa qof aan maaragtay performance-giisa aan warkahayn ayaad noqonaysaa backtestingku aad buu u fiican yahay isagana sidaas la mid ah oo maaragtay systemkii iyo wixii aad baranaysay ayaad in badan maaragtay inta suuqa tagtid ayaad maaragtay soo tijaabinaysaa oo fiirinaysaa bal waxaagan inay shaqeynayaan haddii aysan shaqeynayn oo maaragtay wax kaa kala dhiman yihiin oo arkaysa inaad wax kaa dhiman yihiin waa inaad dib u laabataa oo intii kaa dhimanayd aad soo heshaa dadka maaragtay xogaa waa aragsan dad suuqa muddo ku jiray qof yaqaan waxaan intan ka maaragtay ka khaldan qof maaragtay xogaa ka fahansan waa inaad kula laaban kartaa hadda YouTube-yada 10 ka heshid oo kale waa inaad 10 ka dib ugu noqon kartaa waa inaad isku noqon kartaa marka dee iska soo dhistaa intii ka dhimana forward testing-kana waa in suuqa caadiga ah markaad joogtid oo maaragtay journalka oo kale yani waxyaalaha journal greenis waa inaad ogtahay oo forward testing-kaaga inaad hore u soconaysid ina maaragtay wax ka qaldan yihiin oo aad hor socod ba inaad lahayn si aad isku ogaatid waxa ku sheegaya journalka ayaa ku sheegaya marka forward testing-kuna waa in suuqa dee maalinta marka aad joogtid activity-gaaga iyo waxaaga dhan ay ku diyaarsan yihiin marka performance fiican waa inaad leedahay oo performance review ay intaan saddexdaani ku sameynayaan intaan kale kor ayaan ugu laaman doonaa iyaga chartiska ayaan maaragtay si fiican oo qurux badan ugu sharxi doonaa insha Allah maadaama casharkeenu ugu dambeeyay uu yahay oo laastiga casharkeenu uu yahay maxaynu u baahanahay markuu dhamaado coursiga kan marka uu dhamaado ardaygu waa inuu yaqaanaa inta tan horta market structure-ka waa inaa horta taqaanaa iyo sida loo analyze gareeyo structure-ka waa inaad maaragtay taqaanaa waa inaad analyze gareyn kartaa suuqa waa inaad higher low kala saari kartaa last high iyo last low waa inaad soo heli kartaa labo liquidity-ga waa inaad qeexi kartaa liquidity-ga iyo sida uu yahay iyo inta liquidity jira kulli waa inaad ayagana qeexi kartaa premium discounting waa inaad taqaanaa suuqa markuu meel kor joogo iyo markuu meel hoose joogo iyo sida loo isticmaalo isagana waa inaad taqaanaa sidoo kale fair gaabyada iyo waxa ay yihiin iyo sida loo qeexo iyo meelaha laga helo iyo kanaalada siday u yihiin waa inaad taqaanaa order blocks-ka sidaas la mid ah order blocks-ka halkan oo kale waxa maaragtay la siman zoninta demand zone ama supply zone iyo wixii la mid ah ayagana waa inaad taqaanaa oo maaragtay aad qeexi kartaa session timing-kana waa inaad taqaanaa oo maaragtay session-ku markuu furmo suuqu maaragtay yani Asian-ku xilligu furmayo London-ka xilligu furmayo New York xilligu furmayo xilligu xirmayona waa inaad taqaanaa markaad maaragtay coursiga kan aad dhamaysatay insha Allah entry model-kaagana waa inaad taqaanaa sida entry-ga u qaadanaysid last range soo hel point of interest-gaaga soo hel zone-ka markii lagu yimaado and then maaragtay liquidity hel then maaragtay shift-gaaga iyo fursadaadana aad saas iskugu dhisan kartid trade management-ga kan hadda ayaynu dhiganaynaa
journalka iyo reviewgana waa intii hadda aan idin soo sheegayo waa inta tan journalku aad ayuu kugu fiican yahay waxyaalaha la isticmaalo journalka waxa kamid ah Notion-ka oo kale waa la isticmaalaa Excel-ka oo kale waa la isticmaalaa website kale oo maaragtay la isticmaalana waa ay jiraan oo maaragtay wax lagu note gelisto sawirkaad ku ridanaysaa iyo kulli iyo maaragtay sida aad fursada u qaadanaysid iyo dhinaca u qaadatay iyo kullaygana waa sameyn maaragtay markasta oo aad trade qaadanaysid hadda waxaan u gudbi doonaa shashada insha Allah qaybta jartiska waxaynu badan ayana inoogu qeexi doonaa insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal halkan waxaynu ku qeexi doonaa labadan mid oo labaduba maaragtay ay ku saabsan yihiin trade managementiga ayuu maaragtay ku kala saari doonaa riski bear trade walba inta aad riski gareyn doontid marka aad trade qaadatid maadaama aad raadinaysid 1 to 2 oo hadda trade hadda lacala saan u fulinaysid oo kale SL-kaagu lacala uu yahay 10 bib ilaa iyo maaragtay wax u dhow oo kale 1 to 2 hadda baashatan aan ku baalki gareynaya halka kan aan ka arka ratio halkaas aad ka fiirinaysaa xagan hoose maxaa ku qoran risky reward ratio halkaas aad ka fiirinaysaa marka risky reward ratio-gaagu waa meeqa hadda 2 wax saasaan maraya soo maartid mar walba SL-kaagu bato waxay noqonaysaa mar walba TP-gaaguna uu dheeraado ayay kugu noqonaysaa marka hadda yar oo kale SL-kaygu waa 12 bib TP-gayguna waa 20 bib 10 iyo 20 ba aan ka kala dhigo si maaragtay aysan wax badan maaragtay fahanka aysan maaragtay inooga wareerin aan halkan 10 ka dhigo afwan 10 halkan korna waa 20 markaas bawda 1 to 2 marka 1 to 2 waa riskiga ugu wanaagsan marka la joogo suuqa forex anu inta aan ka arkay iyo fikradeeda waa riskiga ugu wanaagsan aad loo isticmaalo oo daqiiqad maaragtay aad ku kala baxaysan galin ba waxay ku kala baxaysan si hal session ba ku kala baxaysan ka kala hadii lagu gaaran 2 saac ugu horeysa ama saacadiisa koowaad ba waa ku kala baxdeen suuqa marka risk reward ratio marka isticmaalaysid waxa riski gareyn kartaa oo kale 0.5 ama 1 labadaas mid waa riski gareyn kartaa 0.5 ama 1 hadii de marka gacanta ku fariisato qof balaayaa noqotina 2% oo kale waa riski gareyn kartaa ama 1.5 oo kale caadi weyn 1.5 mar maaragtay xogaa positive fiican ku jirtid 1.5 waa riski gareyn kartaa laftirkeeda mar laakiin ha isku dayin inta badan inaad aad ka dhigatid marka maxaa u baahan tahay hadda maadaama 1 iyo 2 kaliya aynu isticmaalayno 1.5 ka waan iga reebiyaa akoonka noociisa iyo inteema 1% ku noqon karta akoonkaaga iyo noociisa inteema 1% ku noqon karta hadda laba akoon ba halka soo qaaday akoon waa 5k akoonna waa 10k akoon waa 5k akoonna waa 10k hadda labada akoon meesha ay noo soo qaaday akoonka 5k ka ah 0.5 kiisu 0.5% ku waa $25 halkan hoose SL-kaagu haduu 25 noqdo TP-gaagu waa inuu maaragtay 25 labada noqdo waa inuu 50 oo kale ku noqdaa maadaama aad 25 riski gareysay 25 kayga soo celinaysaa 25 kalena waa ku daraysaa saas way 50 baa raadinaysaa dollar baa raadinaysaa waa 0.5 kaagu waa $25 0.5 kaagu marka akoonku 25 ka yahay yani akoonku uu 5k ga yahay hadii 1% ay rabtidna waa $50 akoonka 5k ga 1% kiisu waa $50 halka hadaa 50 dhigtid halkana 100 baa raadinaysaa 50 kaaga riskiga soo celisay 50 kalena waa ku darsatay waa intaas 1 to 2 haduu akoonku 10 ku noqdana 1% kaagu waa 100 oo halkan 100 baa dhigtay Soomaha waxa raadinaysaa 100 kaagana soo celisid 100 kalena inaad ku dirsatid saas way 200 baa raadinaysaa markaas 2RR kaagu 200 buu ku noqonaysaa marka 0.5 kiisuna waa $50 akoonka 10 kuna 0.5 kiisu waa $50 mar walba $50 riski galaysid $100 raadi hadda ka sii badatid $100 150 ama 300 baa raadinayda hadda adoo hadda $50 baan dhigay $300 baa raadinaya hadda dhahdid de riski weyn baa galaysaa markaas RR-ka kugu badan ilaa 4RR iyo waxbay ka gaaraysaa baash marka ayaduna ma wanaagsana RR-ka inaa isku badisid adoo maaragtay waxaagi hadda heshin 1 to 2 hadda hesho suuqa ka kala dhamo maalintaas waa isku wareerin naga yareeyo marka 1 to 2 RR ku muxuu u dhigmaa akoonka 5k ga markuu yahay $50 baa riski gareysay 100 baad qaarabtaa haduu 10k yahayna $1 baa riski gareysay $100 baa riski gareysay $200 baa rabtaa $50 baa riski gareysay $100 baa rabtaa saas ku kala duwan yihiin akoonka 5k ga ah iyo akoonka maaragtay 10k ga saasaad
kala xisaabsan doontaa insha Allah risk rewardkaaga de website-ka lagu xisaaminayna waa aniga idin tusay oo MyFX book baa tagaysaa and then waxa ku qoraysaa account typeskaaga account-kaaga nooca uu yahay waxa ku qoraysaa lacagta waa account-kaaga ku shaqeeyo dollar ama wax kale and then waxa ku qoraysaa bibskaaga oo maartay SL-ka inta uu yahay hadda halka koona waa 10 bib 10 bib baa ku qoraysaa intee risk garanaysaa 1% oo kala risk garanaya tamam uu ku sheegay intee entry baa qaadanaysaa hal entry laba entry baan qaadanaya saas ugu qeexaysaa markaas uu ku sheegaya lotka aad ku galaysid lotkuna haduu ka khaldamo way ka khaldamaysaa waxa oo dhan way ka khaldamaysaa marka traderkii gashin laala traderkii baa hadda gashay inta kadib maxaa u baahan tahay marka traderkii gashin traderkii hadaa gashid waxa sameyn kartaa saddexdan wax mid baa sameyn kartaa hadaa mar traderkii furtid markuu traderku wax fiican ku dhaqaaqay hadda kaba soo qaad traderkiisaan u ahaa isjibiyay halkaan aad ka qaadatay uu ku dhaqaaqay markuu cabaar saas traderku kugu dhaqaaqsan yahay oo uusan ku gaarin TB-gaaga waxa sameyn kartaa inaad akoonka partial sameysid lacagta qayb xiratid inaad lacagta qayb kamida inaad xiratid waa sameyn kartaa oo maartay waxa la ilaa TB-ga intii laga gaariyana inta kala hayso socod hadda lacala waxa ku gashay 0.3 oo kala ku gashay Soomaha waxa xiraysaa 1.0.15 oo kale baa xiranaysaa 0.15 kalena way ku sii joogaysaa ilaa inta TB-ga laga gaarayo saasi ku soconaysaa marka partial baa sameyn kartaa waa akoonka maartay ayaad ku ilaalinaysaa account protection-ka labo waxa sameyn kartaa break even account protection-kan waa iga soo dhaxgalay baan umaleynaya meesha waa akoonka sida loo ilaalinayo yani protection baa iska sameynaysaa marka labadaas mid baa sameyn kartaa inaad traderka partial ku xirtid iyo inaad break even keentid traderka break even maxaa la dhahaa traderku hadda halka kan aad ka qaadatay Soomaha shiftiga halka markuu kaaga dhacay oo halkaas lagu jibiyay lagu soo noqday waa gashay suuqii lacala TB-gii ma uusan gaarin oo meel la xumaraya halkaas oo kale waxa sameynaysaa SL-kaagi waa soo durjinaysaa entry-gaaga keenaysaa meesha SL-kaaga entry-gaaga saa u keenaysaa marka entry-gaaga keentid waa break even suuqa haduu soo noqdo oo dabcan suuqu jihada bedesho oo halkan intuu soo jibiyo saa dhoo suuqu jihada bedesho adiga SL-ka lagaaga dhicimayo traderkii kaliya laga saaraya bas 0.0 kala baxaysan maalinta SL-kaagana lagaaga ma dhicin intii maartay SL-ka lagaaga dhici lahaa 0.0 daas ayaad ku kala baxaysan break even waa break even kaasna waad isticmaali kartaa mid kale ha isticmaalin anu kugu la talin lahaa 200% ha isticmaalin in traderka uu ku furan aad gacanta ku xirtid traderka uu ku furan gacanta ha iskaga xirin diiso traderka TB iyo SL mid uu ku gaaray break even hadaa gashatid break even kaaga hadii lagaaga saaro magaalada Seegal hadii meeshan awal ka qaatay hadana ma aragtay in break even ku saaro ma ahayn maadaama meeshii marayo amar kala furo hadii saas ayadana ma aragtay xogaa caqabad bay kugu keeni kartaa maaragtay ma fiicna wayna kugu keenaysaa caqabad wixii waa la qabsanaysaa hadhownadii inta asaas oo kala dhahay break even gashid baa la iskaga kaasii soconaya marka intaas waa gubaabin oo maaragtay waa casharkeena ugu dambeeyay maadaama uu yahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaa kursigeena insha Allah ta'ala sidoo kale waxaan hal mar idin tusayaa intaan tan ka bixin sida loo fiirsado newsiska ayaan maaragtay casharkan ku sii daba dareynaa newska waxa laga fiirsadaa Forex Factory website-kan uu ku qoran yahay hadda halka xitaa aan ku qoro Forex Factory baa lahaa newsyada ayaa laga fiirsadaa waa website-kan ugu horeeya saas oo kale ugu dhufanaysa newsyada maalinta soo baxaya waxa soo dhan ayaad kala soconaysaa hadda warkaan oo kale ma ahayn news qoran hadda maanta kale waxa ku qornayso maanta wax news aysan jirin ba maanta qornay laakiin newskan oo kale iska soo baxay newskan oo kale waa war hal mar iska soo dhax Iran baa dadkan ka soo baxay maadaama dagaalka Iran iyo Mareykanka uu socday oo kale Iran buu newskan hadda ka soo baxay waxa uu saameynaya lacagta doolarka marka uu saameeyay kadibna doolarkuna waxay saameynaysaa intii lacagood oo ay la socotay ka mahayeen euro GU iyo USD JPY waxaan oo dhan intii doolarku uu la socdo dhanba way saameynaysaa marka iska ilaali newsyada tan iska soo dhaca oo aan qornayn marka newsku halkan uu ku qoran yahay si ay iskaga saxadid geeskana taamanaysa baash hada geeskan ku qoranta cagaarka hada anta taamanayo ta cagaarka taamanaysa kan casaanka ah iyo midka kan oo ku sheegay kan casaanka wuxuu sheegaa warku markuu news weyn yahay ayuu ku sheegaya kana newska weyn mid usoo yara dhow caadi laakiin yara ah ayuu ku sheegaya kan jaalahan wuxuu ku sheegay iska news adu 100%
ka hooseeya boqolkiiba 50 iyo wixii ka hooseeya marka saameyn weyn ma yeeshaan kan laftirkiisa saameyn weyn ma yeesho boqolkiiba iska 76 camal uu yahay laakiin saameyn weyn ma yeesho bahalkan cadaanka ahna waa holiday bank holiday marka uu jiro halkana inta lacagood oo aad markaa tirirgareynaysid ayaa tigta saaranaysa si newsadoodu ay si khaas ay kugu soo baxaan marka anu maadaama euro iyo GU maxaa lahaa tirirgareeyo USD na de lacagta la socoto iyo la lamaan lacagahan ay tahay saddexdaas ayaa meesha ii saaran labada newsna maadaama iska maartay ma xogaa yara daciif yihiin ayagana tigta waan ka qaatay oo bank holiday maalinta uu jiro iyo maalinta news weyn jiro un baan apply dhahday oo aan arkaya hadii halka kan aan soo galo marka saasa u fiirin kartaa newsada soo baxay dibri oo kale talaada newskan ayaa soo baxaya wuxuuna ka soo baxaya lacagta maaragtay USD lacagta USD da oo dollarka ayuu ka soo baxaya 3 iyo barka BM oo 3 barka galabnimo saas uu soo baxaya maalinta ku xigta jimcaha wax news ma jiro sabti axad waa iska baalkii saana uu eegaysa isniinta dambe waxa maaragtay bank holiday ku jira bankiga Talyaaniga oo lacagta euro ah maadaama de Talyaani ay Europe tahay maalinta talaadada dambe wax news ma jiro arbacada dambena BMI gaas ayaa wuxuu ka soo bixi doonaa lacagta dollarka saacadu markay tahay 5 galabnimo marka newskana saasaad u fiirsanaysaan halka saas kugu soo taxmaya asbuuca ku sii xiga u baahan next ba si dhahaysa saasa u sii arkaysa asbuuca ku xiga maxaa soo baxaya NFB oo soo baxay oo mid kamid ah newsyadii ugu waaweyn maadaama bil cusub ay dhalatay labadii bisha weey waa maalin khamiis ah waan idin dhahayay NFB gu ama wuxuu soo baxaa khamiis ama wuxuu soo baxaa jimce laakiin inta ugu badan waa jimce laakiin mar kasta wuxuu soo baxaa bil kasta asbuuca ugu horeeya ayuu soo baxaa bil kasta asbuuca ugu horeeya maalinta jimcaha ayuu inta badan soo baxaa maalin ayuu khamiista yimaada maadaama maalinta jimcaha lacagta USD iyo bank holiday ka jiro waa la soo hormariyay newskii NFB oo ah news aad u weyn suuqana saameyn ku leh marka newsku waa kaas halkana waxa ka fiirinaysa newska briefskiisa nooca uu ahaa halkana forecastingka nooca uu noqon doono halkana waxa ka soo baxaysa nooca uu noqday kan waa briefs nooca maaragtay uu ahaa newska ka horeeyay kan waa forecasting kan soo socda muxuu noqon doonaa kan waa wixii uu noqday halkaasna ku soo qormayso actualka marka newsyo hore u dhacay hadaan dib u fiirino oo waxooda dhan u qoran yihiin waa kuwa kan hada newska kan oo kale wuxuu ka soo baxay lacagta GBP USD anahay lacagta GBP uu ka soo baxay oo lacagta Great Britain pound ayuu ka soo baxay newsku markiisa hore muxuu ahaa 2.8 ayuu ahaa newskii hore ee soo baxay oo kan lamida oo bishii hore soo baxay 2.8 buu ahaa tamam hadeer maxaa la rabay inuu noqdo forecastingka 3 baa la rabay inuu noqdo laakiin 3 ma uu soo noqon muxuu noqday 2.8 kiisi baa lagu daayay 2.8 kiisi buu ka soo baxay markaas oo kale maxaa dhacaysa lacagta GBP waa maaragtay sel aadaysa lacagta dollarkana bay aadaysa markaas oo kale marka lacagta maxaa la Great Britain pound waxaad ka raadin doontaa sel saasay maartay ugu duwan kan formsi way formsinga waa hadal iyo wax saas oo maartay press conference way marka isaga aad buu maartay khatartiisu u badan tahay marka kuwana waa newsyo kale ayuuna maartay aad saameyn u leh saasaad u fiirinaysa kan briefski newska hore nooca uu ahaa nooca loo malayn doono iyo nooca uu noqday intaas weeye newsyadana halkaas ayaad ka fiirsan doontaan oo forex factory-ga ayaad ku qoraysaa isaga ayaad maartay markaas newsyadana ka fiirin doontaan marka intaas aynu ku ekeysanaynaa saaxiibayaal insha Allah ta'ala waan casharkeena ugu dambeeyay waxaan rajeynayaa inay koorsatan wax badan ay ka anfacdo waxaan rajeynayaa in maaragtay safarkaaga trainingka ay meel weyn ka gasho insha Allah ta'ala wixii su'aalaha qabtaanna ila soo wadaaga insha Allah telegramka iyo instagramka aad iyo aad ayay mahadsantihiin salaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh